إله ما حل وما هل كان سوق كان كل جن وحنا مهد علنا يا عد والبو كنتي كانوا ويكقاطي دبوجيسين تان تاريخي وعن رواينا مهد عليو وزاردنا الرماح جودها هول بدن كقبتي حوشان دبوجيسين تا ما أنتنا مناسبة القرآن سوق كايرتي سيان كل جن مرخات وجاه عنه دبوجيسين تان تاريخي وعن رواينا أن كهالو دبوجيسين تان كنتي وحيسو سعة المدة لقى الصوب بلعبه على مساركي وأنا عزمي شيخ شاكر إيوه نظام كيسي وحكم كيسي أنا عزمي وأن كبل لعوني هالكاس دبوجيسين تان إلا ما ننتاس إلا حدا وهي هيد واحد سعودية هيد وحان ربائنا هالكان أن كم خاتي فروح أهل السنة والجميع كنتي وحي أهيد مرور إنه مهد عليه نوت كلية معها إيش كان يقاتين كلية معها كنتي وحي جارسيين قولون كان نبديت كا ونرد قال إياه إني دريمان إني دمان كران إني داوع من كران كهر ميسن وجي ما أنت أسبقين تكون بلابتي إلا هذا واسعتها محايا لي وحي كل دجالين عقيل يكل دجالين إلا حدنا والله ده هو دوال نعيه إلا هذا هو دوال نعيه مركا وحي تاي مروى البابا إن حسنا عنه دجالكي يدجالكي أي لقلين قولين كاس نبديت كا أي وقعد كادين وكم هتنتهين حدنا وكم هتنتهين إن قاتين هشيس أو التنازلين أديت بان وكم هتعلنا وحن قوانين ما هتعليه مدحونا حاف وصول شيء السنة كلمة إنك واحد بحيي إنك استوى يوم نفتي هذا على صنع أي نظام وناكسن أي هيسين أو شقينا أي لكن منك أودي سقيلية وايسين ما هم مدحونا كحيي كماها معها بدونها برلمان كماها مركزاس إلا وقال اللون بحيه وأنا قيب كم تنازلك يلا الله رمض إني جارتو مال كسي وناكسن مدير كبعدي أما الله سنة كبعدي أما أفر سنة كبعدي نتكتب مال كوناكسن والأكتهين دبوجيسينتي لسوتي لبض يكون يسيالكي جبوتي لبض بارلمان لسوت دري وحي كانت هب إني كانت دولة أنكم الجارة حين أو دولة برمنتيه أو أي ضدك شعب كأي دورتان هذا حديثنا هل كاس كبر الله حين ماشي هذا الجوجلو مين الجارنين marka insha Allah waxaan rajeenayaa 3 sano 4 sano ka bacdi inay runtii dadka reer galmudug ay ka helaan waxay u aayaan oo runtii mustaqbal wanaagsan laakiin su'aashu waxay tahay oo isweydiin leh hirgelinteeda annagu hadda meeshan marxaati aan karnahay kulligeen waana la saxiixnay inay dhaqan gasho laakiin iyaga laga rabaa iyo shacabka reer galmudug inay hirgeliyaan dibheshiisiinta oo ay ka hormariyaan danta guud ay ka hormariyaan wax walba ay ka hormariyaan bacdama madaxdoodii ay diyaar u yihiin ayna muujiyeen xilkasnimo iyo tanaasul waxaan rabaa xildhibaanada naftooda inay muujiyaan tanaasul iyo xilkasnimo golaha wasiirada hadda joogana waxaa rabaa saas oo inay muujiyaan shacabkan waxa laga rabaa inay iyaga naftooda tanaasul ay muujiyaan taas waxay keenaysaa marka in uu dhaqan galo hirgelinta dib u heshiisiinta gobolkan waa gobolada ugu dambeeya oo runtii dhibaataysan oo abaaruhu ay haligaan oo wax soo saar badan aan lahayn weeye marka si wax soo saar iyo nolol loo gaarsiiyo waa in nabad la helo nabaduna maanta meeshaasay ka bilaabatay aad arkaysaan waxaan ilaahay uga baryaynaa in dib u heshiisiintan ama heshiiskan uu dhaqan galo oo qof walba uu u qaato wax wanaagsan oo mustaqbal fiican leh oo aan cid gaar aysan wax ku waayeen oo dadka reer galmudug kulligood ay ka faa'iideeyaan insha Allah haduu ilaahay yiraahdo annaga qaybteena dawlad ahaan diyaar waxaan u nahay inaan xoojino oo aan adkeenno oo aan hirgelino oo qof alla qofkii carqaladeynay dib u heshiisiintan aan raahno walaalayaal suga dadkaan muddo dheer iyo dagaalayeen
khilaaf muddo ayuu jiray cadow weyn yaana haysta waxaa loo baahan yahay dadku inay u midoobaan cadowga shabaab inay u midoobaan oo wax alla wixii dhexdeena ah aan xalino oo ugu horeyso inaan samaysano dowlad aan isku raacsannahay oo kulligeen aan qayb ka wada nahay insha allahna tan waa hirgelaysaa annagana waa xoojinaynaa haddii ilaahay yidhahdo. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.